رمضان مبارك قولي ريكوردز رمضان مبارك لكل مسلم شهر الذي فيها ينزل القرآن Happy Ramadan to all Muslims. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن نجح كيتشن أم بيوتي رمضان كريم ولا لهيجا أميل البقى جوكتين دمانتين كسود وادا channel كين نجح كيتشن أم بيوتي أقبرتين إسقرحين تدبيعيجا وولاشنا ديني سيدا 10 كلا عصب أيا ولا لهيجا مانتا إنه ودا waxaan ini sida alaabtan yarta oo weelka inagu jirto alaabtan waxa waaye waa alaab yar oo nafaqa oo timaha la marinayo waaye nafaqa biyo in aragtiin waxa waaye waxa isdheesin seen nafaqa ku noqotay laakiin alaabtan waxa waa nafaqa dhameystiran waaye oo timaha nafaqeynayso timaha bixinayso waliba si degdega timahana jajabka daadashada siibitaanka ka dhameynayso timahana israacinayso waa nafaqa hadda dhan walba ka dhameystiran insha Allah halkan lagu soo koobi karo hadii aan dhaho waan ka hadlayaa marka nafaqadan yar ayaan waxaan jeclaystay in aan la share gareeyo si aad uga faa'iideystiin walaalahayga insha Allah kana bogta qaybta daba video soo socota waxyaabaha aynu ka hagaajisanayno iyo sidaan u sameeysanayno nafaqadan waxa waaye nafaqa cajiib oo timaha hadda dhabarka geynayso waliba si degdeg ah timahana jileec ka dhigayso bismillaah alaabteeni timaha bixinaysay oo inoo nafaqeynaysa ayaan sameysanaynaa walaalahayga marka hore waxaan soo qaatay weel yar alaabteena iskula dardarsana waa digsi sidoo kale marka hore waxa u baahan tahay oo saxanka igu jiro waxa waaye oo aan ku shubay digsiga hal xabo basal guduuda oo aan soo jarjaray waaye walaalahayga sidoo kale waxaad u baahan tahay xulbad ayaa u baahan tahay isla digsiga waxaan ku shubay waa 2 qaando xulbadana ma tunno waa sidii aan ku soo gaday walaalahayga sidoo kale waxaan ku shubanaynaa 2 qaando bariis ayaan ku shubanaynaa isla digsigeeni waa bariiskeeni caadiga ah oo 2 qaanda ayaynu ku shubanay waa asagoona ciiriina walaalahayga haatan digsiga waxa inoogu jiro waa bariis waa basal waa xulbad saddexda shay ayaa digsiga inoogu jirto walaalahayga sidoo kale waxaan ku darsanaynaa biyo ayaan ku darsanaynaa hal bakeeri iyo haaf biyo ayaan ku darsanaynaa alaabteeni digsiga inoogu jirto hal bakeeri haatan ku shubay haafkii kalena waa haafkaas biyaha ayaynu hadana ku shubanay waa hal bakeeri iyo haaf oo biyo intaan ayaan wax yar isku walaaqaya ka bacdina walaalahayga dabka ayaan soo saaraya waxaan ku karinayaa 5 daqiiqo oo kaliya ayaan ku soo karinayaa waxaan rabaa oo kaliya biyaha inay ka soo yaraadaan oo alaabteenana isku soo karkarto hal haaf oo biyo oo kaliya ayaan rabnaa inay noogu soo hartay inta kalena inay soo dhameysato marka 5 daqiiqo ayaan dabka isku soo saaraya ka bacdi ayaan hadda walaalahayga isku soo noqonaynaa insha Allah waqtiga awgiis oo inagu yar ayaanan u aadi karin xagga iyo jikada iyo kaamira duubo waxaa waqtiga aad iigu yar walaalahayga marka sidaas aan soo koobaya videoga insha Allah alaabteeni hadda markii aan soo kaliye 5 daqiiqo sidaas ay inoogu soo baxday waa ujeedin biyihii faraha badnaa way soo dhameysatay wayna isku soo karkartay kalarkeedana hadda alaabteeni wuu soo bedelmay marka haatan waxaan sugaynaa in yar intay inoo qaboobayso walaalahayga ayaan sugaynaa marka inoo qabowdo ayaan isku soo noqonaynaa alaabteeni maasha Allah way inoo soo qabowday haatanna waa miiranaynaa waxaan soo qaatay miira iyo weel yar aan ku miirano marka alaabteeni biyaha oo kaliya ayaan u baahanahay alaabtii nafaqada hadda way ka soo baxday bariiskii iyo xulbadii iyo basashii nafaqadii way ka soo baxday marka waa iska daadinaynaa biyahaas oo kaliya ayaa inoo dana walaalahayga biyihii oo kaliya ayaynu hadda aan ka baxsanay marka haatan waxaan ku darsanaynaa alaabo kale yar oo fudfudud ayaan ku darsanaynaa walaalahayga waxa caagan inoogu jiro waa saliida olyoliifada ama saliid saytuun ayaa marka hore u baahan tahay marka saliidan ayaan wax ku darsanaynaa hal qaando saliida ayaan ku darsanaynaa alaabteeni weelka inoogu jirtay walaalahayga meesha ani saliid saytuunka ka isticmaalay in saliid ku taal ayaa ka isticmaali kartaa sidoo kale waxaan ku darsanaynaa caagan inagu jirto waa saliid qumbo coconut oil pure waaye walaalahayga marka ayadana waxaan ku darsanaynaa hal qaando saliida ayaan ku darsanaynaa saliidaha aan ku darsanayna oo mixiga waxay naga caawinayaan timaha inay ciyow nafaqa noo helaan oo timahana ciyow baxaan sidoo kale walaalahayga waxaan ku darsanaynaa oo caagan inoogu jiro waa capsule tinta waaye walaalahayga oo fitamiinka siinaya timahana jajabka daadashada ka dhameynaya timahana bixinaya hal xabo capsule ayaan ku darsanaynaa alaabteeni weelka inoogu jirtay capsule-kana waxaa ka helaysiin meelaha shopping aad ayuu inay caawinayaa timaha haday ka daadanayaan oo kale
isticmaal daadashadaas uu kaa joojinaya insha Allah ilaahay idinkiis. Intaan ayaan isku qasayaa walaalihiga oo si fiican isku dhexgelinaya alaabteeni saliidii aan kusoo darsanay iyo kaabsulka aan kusoo daray ayaan si fiican ugu qasayaa oo si fiican isku dhexgelinaya walaalihi. Alaabtii markaan soo dhexgeliyay oo si fiican iskugu soo qasay walaalihiga sidaas ayay inoogu soo baxday maasha Allah. Sidaas ayayna diyaar inoogu tahay. Haatan kaliya waxay u baahan tahay in la isticmaalo. Marka alaabtan sidee loo isticmaalayaa waayo walaalihiga. Marka hore waxaad sameynaysaa alaabtan u isticmaalaysaa timahaaga nadiif ah ayaa la rabaa alaabtan inaad isticmaashid. Marka waxaad sameynaysaa marka hore timaha ayaa iska soo nadiifinaysaa oo soo dhaqaysaa. Markii aad timaha soo nadiifisid haddii ay ku dhaqnaayeen oo nadiif ku ahaayeen waa okay. haddii laakiin ay wasaq yihiin marka hore timaha soo nadiifi. Markii aad timaha soo nadiifisid ayaa waxaad sameynaysaa alaabtan soo diyaarsanaysaa. Markii aad diyaarsatid ayaa waxaad sameynaysaa alaabtan timaha ayaa marinaysaa. mal rabo alaabta inaad timaha gab iskaga siisid. waxaad sameynaysaa timaha waad kala baraysaa. markii ay kala bartid meesha ee timaha salka ee ka soo baxaan ayaad alaabtan ku masaajeynaysaa. lafta timaha ayaa si tartiib ah ugu masaajeynaysaa. geesaha timaha, dhinacyada timaha markii aad ku soo dhameysid intaas ayaa timaha korkooda marinaysaa oo haddana ku masaaj gareynaysaa. waxaad ku joogaysaa 1 saac ayaad ku joogaysaa. bac yar aad soo qaadanaysaa, madaxa iska gashanaysaa, waa iska shaqaysanaysaa intay kugu hursanayso oo timaha alaabtan si fiican u dhexgelayso. halkaaga saac ayaa ku joogaysaa. ka bacdina waad iska dhaqaysaa. lama rabo inaad shaambo ah ku dhaqdid alaabtan. waxaad alaabtan iskaga dhaqaysaa doobiye shaambo ama condition hair ama nafaqada timaha lagu dhaqdo ayaad alaabtan iskaga dhaqaysaa oo iskaga raacinaysaa. haddii aad haysanin nafaqada timaha lagu dhaqo waxaad sameynaysaa biyo yar aad kululeysanaysaa. biyo yar oo qandaca ayaad madaxa iskaga dhaqaysaa oo iskaga raacinaysaa. marka alaabtan sidaas loo isticmaalaya wiigi haddii aad 3 mar aad ka marsatid okay waaye 3daas mar ayaa kugu filan oo aad wadid muddo 1 bil waad ku faa'iidi doontaa insha Allah. ilaahay idinkiis timahaagana way ku nafaqeeyo waayaan wayna ku baxayaan waliba si degdega insha Allah. ilaahay idinkiis walaaliga alaabtan waa nafaqo waaye. nafaqo waxa waaye caga iyo lugo la waayo nafaqo waxay ku tahay xulbadan ku darsanay. xulbadana timaha way nafaqeysaa, way bixisaa. xulbada sidoo kale timaha awoodaysiisaa, way xoojisaa. jajabka, siibitaanka, qaleylka, ragaaska waxaas oo dhan way ka biisaa. sidoo kale alaabtan waxaan kale oo aan ka sameeysanay oo aan ku darsanay waa bariis. bariiskana timaha wuu bixiyaa, fitamiin uu siiyaa. timahana asagana wuxuu ka bixiyaa qaleylka, timahana wuu israaciyaa walaalihiga. bariiska waliba timaha si degdeg u bixiyaa. sidoo kale nafaqadan waxaan ku darsanay alaabtan oo aan ka sameeysanay waxa kamid ah basal ma timo lagu gaaraa waa maya. basasha ayadaaba timaha bixiso oo si degdeg u bixiso oo timahana nafaqeyso. marka waxa waaye alaab dhan walba ka dhameystir. sidoo kale alaabtan waxaan ku darsanay saliida ayaan ku darsanay oo 2 nooca iyo fitamiinka kaabsulka timaha ayaan ku darsanay. marka saliidahaas 2 nooca waxay ka caawinayaan timahaaga inay si degdeg u baxaan ay ka caawinayaan waayo waa saliida aad u nafaqo badan. waa saliid saytuun iyo saliid qumba ku darsanay iyo kaabsul. marka waxa waaye alaabtan waxa waaye alaab dhan walba ka dhameystiran waaye oo nafaqadeeda wadato oo dhan walbana hadda ka dheelatiran insha Allah. marka ka wada faa'iideysto alaabtan ila soo tijaabiya mana aha wax dhib badan. waa wax yar oo simple waxyaabo gurigaaga aad ka heli kartid ayaa hadda ka sameeysanay oo guri walbana yaalo. marka insha Allah walaalihiga waxaan kaga tagayaa hadda sidaas nabadgelyo. waa inoo kulanta dambe oo xiiso leh iyo aniga inii sidoo video kale cusub walaalihiga. videogaana sii share garee waxaa laga yaabaa qof walaalka inuu u baahan yahay oo ka faa'iideysanayo. marka sii share garee asxaabtaada la waraag. channelka haddii aad ku cusub tahay soo dhawo minankaaga waaye. videoga haddii aad daawatid hadda like ta halka hilmaamin waayo like ta waa dhiirigelinteena koowaad. sidoo kale haddii aad hore noola joogto waad ku mahadsantahay la joogaaga quruxda badan.